سريع على كاسوران إلى الجيزة سماكواريو هيو بغاد سوران أمبلي سوبكو سلام سماكوار أمبلي سوبكو سلام waxaa sharaf noo ah dhammaanteedba inaynu qayb ka noqono maskax iyo fikir aynu gelino qorshaha qaranka 5 sano soo socota waana waxa weeye dhaxalgal ah oo isbedel dhaqaale mid siyaasadeed mid deegaan mid bulsho iyo mid dhaqaalaba ku keeni doona qarankeena wax ka soo maanta aynu talo ku darnaana adduunkana saameyn buu leeyahay aakhirana ajri abaal qofku ayo saad la socotaan Somaliland horumarkeedu wuxuu soo maray marxalado kala duwan 15 sano ugu horeysay 19 ilaa 2005 waxa lagu jiray dib u dhis iyo heshiisiin iyo nabadeyn iyo in la adkeeyo maamulka dawladda markii la soo gaaray 2006 waxa la go'aansaday in qaranku ka gudbo marxaladda oo loo gudbo marxalad horumarineed oo tamarteena iyo dhaqaalaheena siyaasadeeduba ay diiradda saarto sidii horumar dhameystiran loo gudbi lahaa inta kadib waxaanu samaysanay qorshayaal qaran oo 5 sano ahaa qorshaha nabadkii saddexaad waxaanu ku beegan yahay 2022 qorshuhu wuxuu ku taagan yahay 5 tiir oo meelaha doonaya maskaxda lagu hayo tiirka koobaad waa tiirka arrimaha bulshada tiirka labaad waa arrimaha dhaqaalaha ama wax soo saar dhaqaalaha ka saddexaadna waa deegaanka ka afraadna waa maamulka ka shanaadna waxa weeye arrimaha muxuu oran jiray kaabayaasha dhaqaalaha intaas oo tiir ku taagan yahay tiirashana waxa ka farcama waxa loo yaqaano sectors ama wadaagayaal inta marka la soo dhaafo qorshuhu wuxuu daadagaa gobollo oo gobol walba waxaanu kulankan oo kale ku weydiinaa gobolkan muxuu haystaa hanti muxuu leeyahay marka hantidu ama dhaqan ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama xoolo ha noqoto ama dad ha noqoto ama macdan ha noqoto ama wax kale waa in la isweydiiyo gobol walba muxuu leeyahay hantida marka la qeexay la fadhiisiyo la isla qaato waxa ku xigaya hantida hadda laga faa'iideystaa si looga faa'iideystaa heerka markaynu isla garanno halka maraya ka faa'iideysigu waxaan isweydiinaa maxaa caqabado hortaagan in laga faa'iideysto hantida caqabadaha markaynu isla fadhiisinana waxa ku xiga sidii maxaynu sameeynaa si caqabadaha looga saaro meesha oo ka faa'iideysi dhameystiran gobol walba uu sameeyo kheyraadkiisa halkaas uu ka soo baxaya marka wixii gobolkaasi uu ku dirsan lahaa qorshaha qaranka ama xoog la saari lahaa inta marka soo dhaafno ayaa waxa loo soo gudbiyaa in wixii gobolada laga soo ururiyo loo soo gudbiyo wadaagayaasha sektaradii tusaale ahaan oo kale wixii baahi la xiriira biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo fayadhowrka wuxuu imanayaa sektarkii la oran jiray muxuu ahaa biyaha iyo fayadhowrka iyo caafimaadka halkaas marka wasaaradii lahaa ay ka eegayaan 6 gobolba maxaa baahiyo jira caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo arrimihii la xiriiray halka marka la joogo qaranka marka qorshe wuxuu isku bedelayaa qorshe wuxuu ka soo bilaabay degmo gobol qorshe qaran buu noqonayaa marka hadhow qorshayaashaas loo jajabinayaa marka baahiyaha iyo mudnaanaha laga soo ururiyo gobolada ayaa loo jajabinayaa 5 sanadood horta saynu fikrana waa sidaas inta marka laga yimaado go'aamada waaweyn ee la xiriira arrimaha qorsheynta qaranka marka horeba waxay ka yimaadeen talooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ah hogaamiyaha qaranka oo talo ku leh 5 sano halkee dhaqaalaheena iyo caafimaadkeena iyo waxbarashadeena iyo arrimaha kaleba aynu ka qaadana halkee la gaarsiinaya labo waxa kaloo ku leh talooyinka ay soo jeediyaan muxuu ahaa golaha wasiirada oo ka dooda arrimaha mar walba waxa kaloo jira guddiga madaxweynuhu magacaabay oo 12 wasiira oo iyaguna arrinta ka tala bixiya go'aanana ka gaara waxa kaloo jira inaynu mar walba dib ugu noqono wixii la oran jiray vision 2030 oo macnaheedu tahay aragtida horumarineed ee la rabo in qaranka la gaarsiiyo 2030 oo soo bilaabantay 2011 waxa kaloo jira tashiga aanu ka keenayno gobolada iyo degmooyinka inta markaanu eegno haddana waxaanu ku eegaynaa xaqiiqada dhaqaale ee dalkeenu ku sugan yahay ila dhaqaalaheena iyo in saameynaya saadaradeed imiga wasaaraddu waxay dhameystirtay qiimeyntii lagu sameeyay dhaqaalaha dalka oo isagu uu noqonayo gundhig iyo aasaas qorshayaashan sameeysanayna inta markaynu isla helno ayaa markaa la fadhiisanaya oo qorshihii oo dhameystiran la sameynaya qorshahaasi intaanu inaga bixinna
waxaynu sameynaa tashi ballaaran oo lala tashado cid walba oo daneeyayaasha ka mid ah ama ha noqdaan ururada dhalinyarada ama ha noqdaan haweenka ama ha noqdaan cid walba oo qarankan qayb ka ah oo qorshahaas uu saameynayana tashi waanu la sameynaa oo waxa weeyaan xogtooda iyo aragtidoona waanu ku darnaa halkaa markaan taaganahay buu qorshihii noo soo baxaya qorshaha soo baxay markaa waa qorshe ah sawir ama muraayadii qaranku iska arkayay ee dhinaca horumarinta marka waxaanu aaminsanahay kulankan oo kale wuxuu muhiim u yahay in aragtiyaha heer gobol iyo heer degmo ay qayb ka noqdaan qorshaha waxaan qorshahan ka dhignay qorshe kooban oo nagu talagalay inaynu ku soo ururino uun baahiyaha mudnaanta leh ee qarankan uu leeyahay sababta waxaad ogtihiin qorshihii kan ka horreeyey ee imika dhammaaday dee wax badan baa ka fulay waxna kama fulin sababtaa qorshuhu wuxuu la falgalaa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo duruufaha imika 2000 markuu bilaabmay 20kii xanuunkii covidku dee adduunku wuxuu qorshaystay cidna uma fulin inagun ma aha maanta dagaal baa ka bilaabmay adduunkii allah inaga qaboojiyo waxaad arkaysaa isna durba saameyntiisa dhaqaalaha uu ku yeelay nolosha ay bilaamaysa marka inaga keliya ma aha qorshuhu inuu ka jawaabo baahideenna laakiin sidoo kale wuxuu akhriyaa duruufaha ku gadaaman adduunka oo ugu horeysa isbeddelka cimilada oo aan is aaminsanahay inuu noqonayo shayga ugu horeeya doonayna in maskaxda lagu hayo mar walba oo saameyntiisu hadda ay taagan tahay oo hadda aynu ku jirno biyo dhaamin oo aynu ku jirno cunto qaybin oo maalin walba uu soo kordhayo xaaladda iyo duruufaha ay abaaruhu ay kaga tegayaan dadkeena waana qorshuhu inuu arrimaha ka jawaabo sababtaasaan 3 qodob u qaadanay qorshe ka jawaabaya baahideenna 2 qorshe cid kasta ka qayb qaadato iyo qorshe kooban oo maangal ah oo la fulin karo kaas ah haysno ah dhammaantiin aad baad mahadsantihiin waxaan aaminsanahay labada cisho inay ka soo bixi doonaan aragtiyo qaranka wax u tara gobollada wax u tara degmooyinka wax u tara kama dambayntana wax ka bedela nolosha qofka muwaadinka reer Soomaaliland dhammaantiin aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh